guddiga hagista ololaha kaabayaasha asaasiga ah ee dugsiyada deegaanka ayaa kulan lagu dardargelinayay hagaajinta hanaanka barisbarasho ku yeeshay madasha shirarka ee xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida. kulankan ayaana intii uu socday lagu qiimeeyay qaabka uu socdo ololuhu iyo waxyaabihii uga qabsoomay intii uu socday wacyigelinta bulshada deegaanka ee ku dhaqan gobolada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka iyo sidii la iskaga kaashan lahaa sidii ay dugsiyada deegaanka u noqon lahaayeen meel ku habboon waxbarashada oo ardaydu ku nagaan karaan isla markaana dugsiyada deegaanka loogu dhameystiri lahaa agabyada looga baahan yahay gudaha dugsiyada deegaanka Soomaalida. kadib markii kulanku soo dhamaadayna wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdullaahi Cabdi Aadan oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta deegaanka ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadlayeen intii uu socday kulanku wuxuuna ugu baaqay bulshada deegaanka Soomaalida meel walba ay joogaan inay si wada jir uga qayb qaataan sidii la iskaga kaashan lahaa tayeynta adeegyada waxbarashada iyo goobaha waxbarasho ee deegaanka Soomaalida. kulan isku yimid guddiga hagista ololaha hagaajinta kaabayaasha asaasiga ee dugsiyada deegaanka guddigan oo ka wada hadlayay qaabkii loo taabagelin lahaa ololaha lagu hagaajinayay kaabayaasha dugsiyada oo runtii howl muhiim u ah hagaajinta tayada adeega waxbarasho. marka si gudaan guddi wuxuu isla qiimeeyay geedi socodka ololaha waxaa kaloo eegay qorshayaashii iyo wixii ka qabsoomay marka si guud ahaan ololuhu runtii si fiican buu u socdaa dhammaan deegaanka oo dhan buu ka socdaa heer deegaan heer gobol heer maamul magaalo heer degmaba ilaa heer dugsiyo ayuu u dhaadhici doonaa. sidoo kale xukuumaddu waxay u qaadatay qorsho in golaha fulinta ay hagaan hawshan si markaas loo siiyo mudnaan gooni ah isla markaana si loo sameeyo wacyigelin ballaaran iyo abaabul ballaaran oo bulshada laga qayb gelinayo. saad la socotaan dugsiyadeenu runtii markaad eegtid walow dee adeeg asaasi ay noo hayaan haddana sidii loo baahnaa uma dhammaystiro agabyadii loo baahnaa hadday noqoto xagga biyaha hadday xagga korontada noqoto hadday noqoto xagga fasalada ama agabkii kale ee maktabadihii iyo shaybaaradii. marka waxaasoo dhan agabyadaasoo runtii qayb ka ah in adeegii barisbarasho uu noqdo mid tayo leh in ardayda ay noqdaan arday wax baratay. marka si taa loo gaadho waxaa qorshe ahaan loo qaatay in dugsiyada deegaanka iyadoo bulshada laga qayb gelinayo dib loo eego baahidooda isla markaana wax laga qabto dhanka agabyada asaasiga ah oo iskuulku uu noqdo meel ku habboon waxbarasho si marka ardayda ugu nagaadaan waxna ugu bartaan. marka si taa loo taabageliyo waxaa la diyaariyay qorshe ballaaran oo ola ah oo la rabo in wax laga qabto agabyada asaasiga ah ee dugsiyada iyadoo la dhisay guddiyo kala duwan oo heer deegaan ilaa heer dugsi yacni laga dhisay oo guddiyadaas oo qaban doona inay abaabulkii wacyigelinta bulshada loo baahnaa ay hagaan oo qayb ka noqdaan. marka runtii waxaa dadaalkaas aan u baahannahay inay bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada dhalinyarada aqoon-yahanka shaqaalaha dumarka waxgaradka odayaasha culimadiinka qurba joogta dhammaan inaanu ka qayb qaadano. haddaynu hagaajino dugsiyadeenna haddaynu u dhammaystirro agabyada u baahan yihiin sida biyaha korontada fasaladii loo baahnaa kuraastii agabkii shaybaadhka bugaagtii maktabadda u baahnayd akhriska runtii waxay wax weyn ka tari doontaa tayeynta adeega waxbarashada waxayna qayb lixaad la ka qaadan doontaa inaynu helno arday waxbaratay oo runtii iskuulaadkaas ka soo baxda kadibna jaamacadihii inta ay galaan wax soo barata deegaankiina waa adeega. waan ognahay inaysan taa keli ah ku fillayn oo loo baahan yahay xaggii macallimiintii xaggii manhajkii xaggii ma garanaysaa adeegyadii kale waxbarashada in iyadana sare loo qaado. laakiin waxaa muuqata in haddii goobtii aysan ahayn goob ku habboon waxbarasho haddii aysan iskuulaadkeena lahayn adeegyada asaasiga ahaa ee ardayda u baahnaysa wax u barato haddii iskuulaadkeena ay ka maqan yihiin biyihii korontadii fasalo ku filan aysan lahayn oo fasalkii ay fadhiisanayso wax ka badan xaddigii loo baahnaa oo meelaha qaarkood aan ku aragnay in halkii fasal ay 100 arday wax ka badan ay fadhiisanayaan haddii kuraasti ay ku fadhiisanayso u dhammaystireen haddii manhajkii uusan oolin runtii waxbarashada waa mid dhantaan waana taa hadda ka muuqata deegaankeena markii la eego natiijada fasalka 12aad. marka runtii waxaan codsanaynaa dhammaan qaybaha bulshada in ay qayb ka noqdaan ololahan inaynu iskuulaadkeena dib ugu noqono muwaadin walba oo deegaanka ku dhaqan ama ka maqan waxaan u baahannahay inuu gacan ka geysto. marka waxaan runtii codsi u dirayaa dhammaan cid walba oo deegaanka soo jeeda ama danaynaysa inay qayb ka noqoto ololahan inay gacan ka geysato in iskuulaadkeena aynu caawino
iskuulkaan caawinayno arday baynu caawinayna arday haddaynu caawinayna bulshadii baynu caawinayna marka bulsho jiritaankeeda iyo ma garanaysaa horumarkeeda xaqiijisaan u noqono waa in ubadkeena waxbaro ubadkeena saan wax u barano iskuulaadkeena waa inaan hagaajino iskuulku waa hoyga labaad ee caruurta iyo ma garanaysaa ubadka aynu korinayno ama waalidku uu runtii daryeelahayo marka sida aynu guryaheena uga damqanayno ama u doonayno inuu noqdo mid bilicsan inuu iskuulaadkeena noqdaan u baahannahay taana waxay u baahan tahay inaan iska kaashano xafiis ahaan iyo xukuumad ahaan runtii waan qaadanay qorshahaas wayna naga go-an tahay inaan wax ka bedelo laakiin far kale afoolma maydho waxaan u baahannahay bulshada inay qayb ka noqoto marka runtii dadaaladaas iyo ololahaas socda in qayb laga noqdaan codsanaynaa waana runtii bogaadinayaa dadka ilaahay hadda ka qayb qaatay ama dadka horaan qaybta uga ah waan ogahay inay jiraan xubno ama qaybo bulshada ka mid ah hawshan ku howlaneyd waxaan u baahannahay inaan garab istaagno kuwaas waxaan u baahannahay inaan ubadkeena iyo caruurteena iyo ardaydeena u helino uguna helino in aan hagaajino meesha ay wax ku baranayaan si markay waxbarashada u tababagasho marka ololahaas in qayb laga noqdo oo xukuumad ahaan iyo bulsho ahaanba iyo dhammaan bahda waxbarashada ama bahda saamileyda aynu iska kaashano si markaa aynu isbedel muuqda aan uga samayno dugsiyadeena isla markaana ardayda ay noqdaan arday waxbarata oo deegaanka iyo dalka iyo bulshada anfacda aad baad u mahadsantihiin